naag reer xamar ah ayaa xanuunsatay. kadib markay xanuunsatay ayay waxay aaday daktarkii markuu jeekimay uu baaray ayuu wuxuu ka helay cudurka la yiraahdo beer subag. kadib daktarkii wuxuu u qoray maamadii daawooyin wuxuuna siiyey waanooyin sida in aysan cunin habeenkii casho oo ay iska seexato iyadoo gaajaysan. maamadii daawooyinkii marka la siiyey waanadan la siiyey way iska baxday. markay baxday oo guriga ay aaday habeenkii markii la gaaray xilliga cashada ayay gabadheeda wacday. waxay ku dhahday heblaayo kaalay ii imow. markay u imaaday gabadhii ayay waxay ku tiri hooyo maanta daktarka ayaa wuxuu ugu yiri casho iska dhaaf ha cunin balse waxaad samaysaa qadadii maanta oo digsiga ku jirto iisoo kule.